السلام عليكم أصحابي مركل كسو دوادا كنال كينا بولشو يوتيوب أصحابي ماتو حان جعلستي إنا إذن لبداغو ننجب صدي لو بقل تضبي تبان بنك واو runtu ayaa waysa marka aad maqasho nin jabsaday 217 bank balse waxaan ku leeyahay hala yaabin waxaan waa iska adduunye haddaba adiga waxaad su'aalaysaa ninkaas waa kuma magaciisu waa maxay dalku uu dhashay waa maxay lacagta uu jabsaday intee gaaraysa haddaba hadduu jabsaday muxuu ku sameeyay haddaba intaan ku sheegin ka hor haddii aad kanaalkan ku cusub tahay ka mid noqo asxaabta ku xiran kanaalka bulsho wax badan ayaa ka faa'iido doontaa subscribe nasaar gambalaalkeerna furo si video walba markaan soo dhigno aad u noqotid qofka ugu horeeya ee daawada haddana ku soo dhawow kanaalkaaga bulsho soo noqod wanaagsan asxaabi ninka magaciisu waxa la yiraahdaa Hamza Beldanaj wuxuu ku dhashay 1992 Algeria wuxuu leeyahay magacyo kale oo qosol ah sida Hackerman oo macnaheedu tahay ninka jabsadaha ah wuxuu jabsaday 217 bangi iyo tiro lacageed oo gaaraysa 4,000 milyan Hamza Beldanaj wuxuu ku jiray liiska ugu sareeya ee loogu talagalay farsamayaqaanada ugu caansan Interpolka iyo FBI-da wuxuu jabsaday bog rasmiga ah ee dawladda Israa'iil Hamza Beldanaj wuxuu ku jiray 10kii ugu sareeya ee FBI-da doonaysay ee raadinaysay markii la weydiiyay waxa uu ku sameeyay lacagta wuxuu sheegay inuu ku qarsh gareeyay malaayiin dollar hay'adaha samafalka ee Falastiiniyiinta iyo Afrikaaniyiinta sanadkii markay ahayd 2015 shabakada Tunisia ayaa ku dhajisay xadhig ah Beldanaj in lagu xukumay dhimasho xogtaasina waxay ku faaftay shabakada bulshada ee Algeria iyo dhowr kooxood oo taageera Facebook ayaa lagu abuuray su'aal iyo warcelin iyo si ay u taageeraan Hamza Beldanaj markii la xiraayay runtii ma uusan diidin in la xiro wuxuuna sheegay in qoyskiisa ay ku faraxsan yihiin xiritaankaas wuxuu jabsaday 217 bangi iyo tiro lacageed oo gaaraysa 4,000 milyan ugu dambeyntiina Hamza Beldanaj waxa la dildilay asigoo qanacsan misana oo qoslaya haddaba asxaabay waxaan filayaa inaad ka heshay videogan like gray ha ka ilaabin like haddaba waxaan ku rajeynayaa inta video xiga ku kulmi doono nabadgelyo